بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan ardayda software academy ku xiran soo dhawaada iyo shaqadada kala duwan ay halkan koorsooyin ka qaadata muddadii fasaxa jaamacadaha ahaayeen maanta waxaan ka hadli doonaa xiisadeena ay ku saabsanaan doontaa insha Allah hadii ilaahay yiraahdo maadada la yiraahdo Microsoft SQL Server ama guud ahaan loo yaqaano SQL Server loo yaqaano database-ka ayay ku saabsan tahay ayaan ka hadli doonaa marka video waa duuban yahay haddii linkiga zoomka kaa go'o waxaad kala socon kartaa pageka insha Allah gruubyada whatsapp aan ku leenahayna waa ku soo share gareyn doonaa marka ugu horeyso aan ka bilaabno waa maxay SQL waa maxay server waa maxay database saddexdaas waa inaan kala xaqiijinaa marka hore intaanan fahmin magaca oo dhammaystiran waa maxay SQL waa maxay server waa maxay database marka sharaxaad yar ayaan shaashadan cad ku bixin doonaa waxaan rajaynayaa inaad la socotaan notebook-giinana aad haysataan marka saddex erey ayaa halkan noo taalo oo nalaga rabo inaan xaqiijino ama aanan ku samayno wax loo yaqaano definition ereyga ugu horeeyo waa SQL ayaa loo yaqaanaa ereyga ku xigna waa server ereyga ku xigna waa database saddexdaas erey ayaana laga rabaa marka inaan xaqiijin ku samayno ama aan isku afgarano intaanan wax kale la bilaabin marka hore waa maxay SQL waa maxay server waa maxay database marka arday oo waxaa ku jirta meesha khibrad leh marka waxaan rajaynaa inaan iskala qayb qaadano marka maadaama barnaamijka zoom uu yahay ardayda badan fogaan la kala fog yahay waxaan rajaynaa in la kala faa'iidaysto marka waa maxay SQL yaa ii qeexi karo SQL keliya yaa ii qeexi karo wax laga wado waa maxay ii sheeg waa maxay SQL wax laga wado yaa ii qeexi kara waa maxay server wax laga wado iyo waa maxay database wax laga wado haye yaa ku soo dhaweynaa codka furo tartiib ugu jawaab haye haye aaw ardadii ayaa noo qeexi karo waa maxay SQL waa maxay server waa maxay database okay anaa marka qeexayo aan la soconno marka anaa qeexayo SQL waxaa la yidhahdaa waxaa laga soo gaabiyaa structured query language marka la fiiriyo IT-da marka la fiiriyo waxa ugu muhiimsan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano application marka la fiiriyo IT-da wax ugu weyn oo la isticmaalo waa application annaga hadda waxaan isticmaaloona application annaga hadda zoomka isticmaaloona waa application whatsappka ku wada xiriirno waa application facebook aan ku wada xiriirno waa applicationka suu u shaqeeyo marka wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano data ayuu u baahan yahay applicationka suu u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano data ayuu u baahan yahay without data applications cannot work without data applications cannot process anything data la'aan applicationka waxba ma process gareyn karo hadduu data haysanin applicationka wax kale uu samayn karo ma jiro datadaasna waxay u baahan tahay in lagu sameeyo store in lagu samayn karo access in lagu samayn karo secure in lagu samayn karo organized in lagu samayn karo retrieve in lagu samayn karo manipulate any application wuxuu u baahan yahay data any datana waxay u baahan tahay in lagu sameeyo intaan qaybood aan soo sheegnay iyo ka badan tusaale buugga deenta aad ku qortid dukaanka xaafadda ama cidda ay leedahay aad ku qortid wuxuu u baahan yahay intaan oo dhan oo ah kow waa inuu noqdo buug wax kaydiya labo la heli karo mar kasta saddex amni ah oo cid kale aysan furi karin buuggana hab maamul fiican wax ugu qoran yihiin oo deenta aysan isku dhex qorneen cali cabdi cumar ah inta deentiisa isku qoran tahay faaduma cilmina inaysan deenteeda isla meesha alle ku qorneen oo ay kala qaadan tahay sidoo kale waa inay retrieve la heli karaa buugga mar kastoo la rabo in deymihii laga akhriyo waa in inta lasoo saaro la akhrin karaa sidoo kale isbedbedelna waa in lagu samayn karaa haddii qof deenta u bixiyey haddii qof deenta dheeraad ay ku tahay intaasoo dhan waa in isbedbedel lagu samayn karaa
maxaa lagu samayn karaa isbabedel sidaa darteeda waxaa jiro luqado fara badan oo database-ka maamula ama loogu talagalay daatada inay maamulaan luqado iyo farsamooyin fara badan oo waxaa jira oo loogu talagalay inay maamulaan daatada sida ay u jiraan languages ama luqadyo fara badan oo lagu sameeyo applicationada kala duwan sida haddaad rabtid inaad samaysid website major languages kama luqadaha waaweyn a u baahan tahay maxaa ka mid ah html css javascript frameworks AngularJS iyo Node.js iyo kuwaas u baahan tahay haddaad rabtid server side-ka inaad dhisto okay then waxaa u baahan tahay languageskaas u baahan tahay si aad ula tacaamusho webka ama si aad u dhisto web application ama website saxan oo nadiif ah haddii aad rabtid inaad desktop application samaysana luqado kala duwan ayaa lagu samayn karaa PHP Python C# VB.NET iyo luqadahaas C language C++ waad ku samayn kartaa application desktop application haddaad mobile rabtana sidoo kale luqado u gooniya ayuu isagana leeyahay sida Kotlin oo kale Java oo kale marka SQL-na waa luqad lagu maamulo lagu horumariyo lagu kaydiyo wax loogu bedbedelo database-ka database maxaa waaye base waa xarun military base English waa ku aragtaan oo xarunta ciidanka uu degan yahay oo saadkiisa iyo wixiisa dhan u yaallo sidoo kale datadana meesha ay degan tahay waxa loo yaqaanaa database loo yaqaan so marka SQL waa luqad ka mid luqadaha lagu maamulo datada Soomaali haddaan halkan ku qoro SQL waa luqad ka mid luqadaha lagu maamulo xogta haddaan dhaho data waxaa ku soo haray server every computer on earth ama every computer oo shaqeynaya adduunka waxa loo kala qaybiyaa majorly labo ayaa loo kala qaybiyaa computerkaaga hadda ay isticmaalaysid labo mid waa server waxaana server laga wadaa inuu qaybiyo service inuu qaybiyo ayaa laga wadaa inuu qaybiyo service midna waa client waa keyga waa kaaga camal midna waa client maxaa loogu talagalay oo uu yahay isagana receives service isaga adeegu helaa midna waa waalid midna waa waalid loo ahe ama cunug waay tusaale computerkaaga soo qaadatay wiilow dan browserkaa tagtay waxaa qortay google.com ayaad qortay maxaad u baahan tahay markaad google.com aad qorayso waxaad u baahan tahay websitekaas inuu ku qaado dan uu ku geeyo computerka ay leedahay computerka ay Google leedahay oo adduunka ku xiran ama network internetka adduunka ku xiran meel kamid Mareykanka ama meel kamid adduunka dhex yaala dan waxaa rabtaa computerkaas in uu ku soo celiyo wax lagu magacaabo jawaab adigoo jooga xamar soo marka adiga maxaa tahay client yaa tahay wax dalbade computerka Google ay leedahayna ama google.com muxuu noqonaa waa server hayo information ama service haya soo marka server waxa laga wadaa computerka hayo adeegaas wuxuu noqon karaa network service application service ama data service ay noqon kartaa ama support service intaas ay noqon kartaa support service waxaa tusaale waagii oo internetyadii hore jiri jireen waxaa jiri jiray share mode application la dhaho oo computerada lagu shubo waxaa jiray application ama software la yidhahdo share mode oo lagu shubi jiray application computerada waagii hore internetka share mode muxuu sameynaa share mode wuxuu sameyn jiray computerada internet cafeega lagu isticmaali jiray marka wuxuu sameynaa waxaa lagu shubay dhammaan 10 computer meesha ku taalo 10 computer halkaas ku shubay dan mid kamid marka waxaa ka dhigay admin inta kalena waxaa ka dhigay client hadhow marka waxaad awoodaa adig marka inaad maamusho clientyada inaad maamusho waqtigii ay lahaayeen haddii ka bataan inaad ka jirtid waxaa kaloo inaad damisid computerka qofka u daaray inaad damisid inaad soo daarto inaad fail meesha ku dhex jirto aad tirto fail meesha ku dhex jira inaad soo qaadato aad koobiyeysato waxyaabahaas oo dhan waxaa la yidhahdaa client service share mode-kaas loo isticmaali jiray soo marka ninka waqtiga kaa jaraayo computerkiisa wax kale kuma dheero kaama weyno kaama feero weyno
bal waxa laga yaabaa computerka inuu desktop yahay kiisana laptop mini uu yahay laga yaabaa laakiin waxay ku kala power sareeyaan waa awoodda applicationka lagu shubay ama awoodda serverka ayaa ku kala weyn yihiin server marka kaas la yiraahdaa what is a database marka database maxaa la yiraahdaa database waxaa la yiraahdaa eri english ahaan maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa database aan textiga soo qaato database waxaa la yiraahdaa is a collection of related data oo hal meel ku wada jiro ama meelo kala duwan ku kala jiro ayaa waxaa la yiraahdaa data ama database waxaa la yiraahdaa a collection of related data is a collection of related data ayaa lagu magacaabaa okay marka is a collection of related data maxay tahay marka macnaheeda waxay tahay macnaheeda isku darka xog kasta oo isku daran hadday meel ku jirto dan waxa loo yaqaanaa database tusaale mobile contactigaaga oo kale mobile contactigaaga maxaa ku jiro saana ku jiro mobile contactigaaga saana ka bilowda tusaale أحمد عمر أو كذا تقدر لي حل شان إيه أنت لو هاكو جرو ربما ميري أو كلا تقدر لي حل أنت لو هاكو جرو عثمان أو كلا دن هاكو جرو نمبر كيسة إيه كده دن حقت ماشي هنكو جرو موبايل كونتاكتس كمحاوي هيري معيش كوجو جرا وتكست in number clear وانا حق اسله وحق اسله maxaa yeelay waa magac waa numberkiisa waa magac waa numberkeeda waa magac waa numberkiisa that's a database hayraado haweenaado that's a maxaa waaye database lagu magacaaba waa database shaqeynayo oo sax ah mamsa maxaa yeelay xogta way isleedahay waana collection of data way taas waxa la yiraahdaa database yiraahdaa database marka aan sii sharaxna marka data waxa la yiraahdaa data maxaa la yiraahdaa dhowfar wax kasto oo aan bislayn waxa loo yaqaanaa data computerka inta dhiganaysa ama IT-da waxa ugu badan aad arki doonto ereyada ugu badan waxa kamid ah data maxaa yeelay data waxa waaye is the blood of application is the blood of computers. If there is no data, there is no running computer. Hadday data jirin, computer shaqeynaya ma jiro. Application-kaaga Windows-ka ma shaqeyn karo hadday data lagu shubay lagu programming jirin. Data haddaysan jirin, wax noolaan karo computer ku saabsan ma jiro. Xog haddaysan jirin. Okay? Then, what is data marka? Waxa saas important u ah maxaa waaye is a raw fact waaye. noqon kartaa number noqon kartaa text ay noqon kartaa tusaale for example tiradaan qoray kaliya wax macno ay leedahay hadda ma jirto tiradaan qoray wax hadda macno weyn ay noo leedahay tiradaan ma jirto aan keen inay number ay tahay aan jeedna kaliya laakiin haddaan iraahdo plus is equal haddaan dhaho equal dando ay soo baxayso dan hadda markii xogta fasir liidaho dan waa fasiri karaa waxaan dhigi karaa waxa laga wadaa kun oo kaligiis u taagnaa oo data ahaa lagu daray kun kale oo data ahaa isagana oo kaligiis gooni u taagnaa dan waxa ii soo baxay 2000 labada kun maxay noqonay marka ii jawaabi karo kan waa data dhahnay kan kalena waa data kan waa data plus data maxaa noo soo baxay marka maxaa loo soo baxay maxaa la lahaa maxaa noo soo baxay database noo soo baxay hayaa kale isku dayayo data lagu daro database ma noo soo baxayso waxaa noo soo baxayso wax loo yaqaano information noo soo baxayso halo waxaa ah xuseenow tusaale waxaa ah
kubadda waa dheeshaa fila tusaale waxaa ah in lagu dhaho yar saaxiibka intuu whatsapp ka soo waco oo ku yiraahdo niyo galabta isniinta ah kadibna telefoonka uu kugu damayo bas marka data haysta kaliya wax kale ma haysta dan raadisaa kale aad ma istaagaysa nambarkiisa ku celinay mar kale waxaa leedahay ninka saaxiibkayga maxaa ma waashtay maxaa galabta isniinta bas galabta isniinta maxaa dhacay waxaa raadinaysaa marka data kale information aad raadinaysaa data kale hele tii hore isku kabe oo galabta isniinta marka lagu dhaho iyo tii lagu siiyey oo aad u baahan tahay kadib loo bixin sax rabtaa waa wixii marka على صحيح ويسوي على الحين هذه قلبت سنين تام حكوا ده قلبت سنين تام كده بدو كوسر راعيه لو قلبت لعكت اي قضيه قلبت سنين تام طبعا ساعه markay tahay garoonki aan ku dheeli jirnay kooxano balansan dan waxa rabnaa ina oo kubad u baxno soo diyaar garow hadii lagu dhaho dan maxay haysataan information ay haysataan waa qanacsan tahay marka information ay haysataan markaas soo marka data waxa la yiraahdaa row number row text row image waxa soo dhan image half ah image gacan bas ka muuqdo inta kale aanan muuqan ma ka shaqeeyay gacanta waxay tahay ma ka dhigan tahay gacanta qof miya maxay tahay gacan nooce oo ma ogi data way okay information marka haysidna dan warbixin guud ah haysataa oo dhameystiran tusaale hadii jaamacadda Facebook page-keeda ku soo qorto bishii Agosto bas ee dhal ka hor lama fahmayo soo marka taas waxa la yiraahdaa data-na muhiim u tahay in computer ka shaqeeyo imagine marka Facebook-gaaga gashid data data dataas maxaa way ya shay karo Facebook-gaaga marka saa u gashid facebook.com aad qortid data si saaxib aad gashay facebook.com aad gashay hore aad dhintid maxaa way ايه حطوا جوه فيسبوك اساسا محاول يوزر نيم باسورد yes username and password without data what application shaqeynaya ma jiro application shaqeynaya ma jiro hadhow mar ku fikir markii aad application sameeyay userka inaad application badan ka soo qaadid adiga userka wax badan ha u sheegin wax badan aad tusin adoonan information badan ka soo qaadin waxa laga yaabaa application sameeyay website badan hadda sameynaysid adiga xog badan ka dalbayaan waxay ku leeyihiin direct wararkii inuu soo gaaro emailkaaga inta bil direct waxay rabaan waxa soo dhan daatada inay ka faa'iideystaan xogtaada inay ka faa'iideystaan mobilkaaga marka application soo degsid wuxuu ku dhahaa locationka ii fasax kamarada ii fasax kan ii fasax kan ina samay keyboardkaaga ii fasax waxa soo dhan codkaaga ina dhageysto ii fasax waxa soo dhan maxay rabaan so much data inay ka helaan xog fara badan dan ay kugu adeegaan sida ugu fiican maxaa yeelay adiga dhan ay ku kasaayeen markaas hadda Google fiiri marka qoraal qortidba wuxuu og yahay waxyaabo aad baartid wuxuu og yahay waxyaabo aad jeceshahay dan wuxuu ku sameynaysaa ku dhameystiray qoraalka haysiinta ku soo bixaysa xataa oo YouTube ku soo bandhigayo waxaysiimaha badana laga ogaaday adiga productizida ama adeegyada service-ka aad jeceshahay dan kuwaas lagu soo haysiina markii aan waxba ku daahin taas waxa loo yaqaanaa data kaas loo yaqaanaa database-na waa meesha xogta ay degan tahay loo yaqaanaa haanta xogta ay degan tahay ayaa waxa loo yaqaanaa database haanta ay degan tahay haantaasna waa table ay degan tahay database-ka ayaa waxa loo yaqaanaa table-kaas waxa loo yaqaanaa database loo yaqaanaa marka waxa ku jirta xog fara badan ayaa ku keedsan waxa noogu jira database marka wuxuu ka kooban yahay tables hal table wuxuu ka hadlaa marketingka table kale wuxuu ka hadlaa xafiiska examination-ka haduu jaamacad yahay database-kaas table kale wuxuu ka hadlaa finance-ga table kale wuxuu nooga hadlaa admission-ka table kale wuxuu nooga hadlaa backup-ka waxyaabahaas oo kale table kale wuxuu nooga hadlaa alumni ardayda jaamacadda ka qalin jebisay intaas oo dhan dan database-kan waxa u bixinaynaa magac tusaale waxa u bixinaynaa university database oo kale waxaan leenahay Horseed University Database 2020 waxaan leenahay marka database-kan waa database uu ku shaqeyn jiray Horseed jaamacadda Horseed sanadkii 2020ka dan hadaa u baahanahay inaan helo table-ka examination waa gali karaa table-ka admission waa heli karaa sanadkii 2020 ardayda la qaatay dhan heli karaa table-ka oo hadaan galo marketing waxa heli karaa marketing wuxuu qabtay activity-giisa inta la qaatay shaqaale ah marketing uu qaatay activity-uu sameeyo ogaan karaa intaas oo dhan waxa ii suurta galinayo database-kana waa application database maxaa waaye database waa app ama software kaydiyo maamulo habeeyo
ilaaliyo xogta kala duwan adduunka marka database fara badan aa jiro adduunka waxaa jiro database fara badan maxaa ka mid ah databaseyadaas waxaa ka mid ah databaseskaas waxaa ka mid ah ka hadda anaga qaadanayno oo la yidhaahdo SQL server SQL server waa hor waxaan ahaa hadda badan waa laga gudbay aadaa loo isticmaalaa laakiin sidii hore uu ahaa ma aha yaa bedelay booskiisa Oracle laftirkeeda IT waa taqaana waa isbedelay Oracle laftirkeeda hadda waa laga sii gudbay oo hadda badan waxaa bedelo waxa lagu magacaabo PostgreSQL iyo Mongo ayaa hadda loo sii gudbaya laakiin hani jabin SQL na si fiican u shaqeysaa Oracle si fiican u shaqeysaa wali dalkeena marka la fiiriyo Oracle aad loo isticmaalaa laakiin maskaxdana ku sii hay in Postgre iyo Mongo aad loogu sii guuri doono goordhow MySQL jirta iyadana website-yada loo adeegsado badanaa laakiin iyadana wax lagu kaydsado isbitaalada iyo waxyaabaha soo dhan MySQL isticmaalaan aad u isticmaalaan intoodaba waa software waxay isugu jiraan kuwa lacag kuwa lacag ahayn kaliya kuwa support ka rabo iyo kuwa support aan ka rabin oo lacag inay ka baxdo ka rabin isugu jiraan laakiin kulligooda waa application ama databases loo isticmaalo in xogta lagu kaydiyo shirkada u shaqeysa mid ka rabto u soo gaday mid ka rabto waxay siinay ka gaday tusaale SQL ka gadi kartaa Oracle ka gadi kartaa Postgre dhammaan databases kan marka laga reebo Mongo iyo Postgre ama Mongo kaliya marka laga reebo maxay ka wada midaysan waxay ka mid yihiin one language taasoo ah ya shay karo one language ee ka wada midaysan ya gacanta taagi karo أستاذ يا انتانو language انتانو software system SQL Oracle Postgre Mongo database MySQL hal waxa ka wada midaysan halkaas wax maxaa waay حق لو كذا maya waxay ka wada midaysan hal luqadood oo isla fahmi karaan tusaale may marka la yiraahdo qofkan waa Soomaali qofkan waa Soomaali maxay ka wada midaysan لقدة yes luqadda ay ka wada midaysan yihiin waxaa loo yaqaanaa structure query language waxaad tagi doontaa interview insha Allah hadduu la yiraahdo qaarkiin jaamacadda waa dhameeyeen qaarkiin waa dhameeyeen waxyaabahan generalka lagu weydiinaa okay oo guud hadda database rabo meeqa option haysta hala soo boodin SQL server kaliya la isticmaali karaa hala soo boodin hadba waxa dhada waxay ku xiran tahay baahida company-gu uu leeyahay data weyn ma la keydin rabaa data ma la keydin rabaa oo ii sheeg mobile u badan ma la keydin rabaa hadii lagu dhaho data mobile u badan la keydin rabaa dan waxa ku fiican inaad isticmaashid Mongo iyo Postgre data oo mobile-lada ka imaanayso tusaale dadkan oo barnaamijyadan oo hadda cuntada oo kale faras oo kale iyo ii sheeg barnaamijyada cuntada lagu dalbaday waxyaabahaas oo kale markii la isticmaalayo applicationadaas badana mobile way Soomaa dadka mobile ka soo galaan tusaale waxa kamid ah dhaweeye oo kale iyo ama barnaamijkan recap oo kale iyo recap oo kale hadda dhaweeye kuma shaqeeyaan SQL server because culays waa SQL server markii la fiiriyo mobile wuxuu rabaa wax fudud u rabaa marka waxa la isticmaalaa Postgre ama Mongo database la isticmaalaa marka dhow waxa dhada baahida company-ga ayuu ku xiran yahay hadba database-kii la isticmaalayo then introduction yaraan galaynaa day 1 saas noogu dhamaatay waxaan sameynaynaa database fudud table ayaan ku xijinaynaa insha Allah intaas ayaan ku gabagabin doonaa iyo sharaxaad yar marka 2 daqiiqo oo sharaxaad yaraan galaynaa kadib waxaan u gudbaynaa wax su'aal jirin practical ayaan u gudbaynaa waa arkaynaa marka laakiin berri wixii ka bilowday ayaa table si loo sameeyo wax loo geliyo arki doonaa insha Allah haddii wax su'aal jirto marka intaanan u gudbin presentation-ka wax su'aal ma jirto ya okay wax su'aal hadii jirin waan gudbaynaa marka xamuli ay su'aashaas hays oo weydii kartaa xamuli su'aal أستاذ هذا ما صنتها waxaan ka rabay SQL server-kan kaliya database iyo in abu ro query-gaas la qoro ma ahane waxyaalo kale oo isaga gaar u yahay ma jira sida application in lagu sameeyo application hadda sharaxaad meel soconiya si application loogu sameeyo laba dhinac waayda application-nada ku dhiso application database la'aan ma shaqeyn karo there is no single application data la'aan shaqeyn karo ma jiro
daatadaas application internet عامل فان daatadaas application uu ku shaqeynayo labay kala tahay midna waa daato qofka developerka uu gelin karo tusaale waxaa ka mid ah calculator daa sameerid calculator daa sameerid qofka markasta calculator uu soo kiciyo 1 ilaa 10 inuu gelinayo horta 1 kadib uu isku daramaya may soma dan daatadaas oo kale aad diyaarinaysa laakiin haddaa sameerid ka waran application ku dalabka qofka qaadayo magacaaga geli meesha degantahay geli lambarkaaga telefoon geli cuntada rabtid geli applicationkaas daa sameerid dan maxaa u baahan tahay database u baahan tahay meel xogta ku keedi dan laba dhinac waa marka ma luqadna waxa ku sameynay application-kii luqadna database-ka ku sameynay labada luqadoodna shaqo iyo shaqo isku ma lahan tan application-ka ku sameynay interface-ka iyo soo shaqeynayo tanna SQL waxay ku sameynay database-ka soo marka SQL oo dhan SQL server oo dhan waa database nothing else daatadaas lagu maamuli karaa lagu gudbin karaa views-ka laga bedeli karaa qaabka loo arkayo primary key ku xir foreign key ku xir kan ku xir permission u sameey kaliya ma ahane application in lagu sameeyo laakiin fiiri SQL access oo kale uu sameyn karaa access waa lagu sameyn karaa application oo database ka ah access waa lagu sameyn karaa maxaa yeelay wuxuu wataa wixii interface-kii loogu talagalay in application lagu sameeyo batamadii muuqaalkii formkii ayuu wataa sidoo kale oracle waxaa jira oracle forms application la yiraahdo oo ah database-kii aad dhisay kadibna interface-kii kore batamadii iyo text box-idii dropbox-kii wixii aad dhisay hadana luqada saas wata way jiraan hadda MySQL oo kale application kuma sameyn kartid kaliya waa inaad database-ka ku dhisto application waxa ku sameyn kartaa direct Java ama direct PHP oo ay saaxiibo yihiin marka introduction kana dhameynayna kadib si database loo sameeyo iyo waxa arkaynaa sida table loo sameeyo insha Allah bilaa yiraahdo codka iska xir marka su'aashaad inaad ku qanacdo rajayna xumari magacaaga mise kala u sharxa wali aad ustaatay aad ma santa marka notebook ina haysataan oo sharaxaada si qortaan waa jeclaan insha Allah waan rajaynaa introduction to databases marka ayaan ka hadlaynaa ciwaanka koowaad ka hadlaynaa insha Allah bilaa yiraahdo okay halmaamin marka ina software academy page-kaas aan leeyahay oo aan ugu talagalay ardayda inay wax ka faa'iideystaan with free no cost koorso kasta oo ku jirto ii sheeg hadda website dhisi rabaa softwareacademy.com waa dhisan yahay laakiin shaqo badan u baahan yahay koorsooyin aan gelin rabaa far badan macallimiin kala duwan ay keeneen intooda badan waa free insha Allah hadii la yiraahdo haddaa koorso soo dalbatid saddex qof haddaa tihiin aad koorso soo dalbataan idinka go'anta inaad waxbaratiin then with free cost ayaan idinku bari doonaa hadii la yiraahdo insha Allah hal kala faa'iideysto SQL marka language waayo operate lagu maamulo wixii hadda Soomaaliya ku soo sheegayo waayo lagu maamulo database-yada waxaa ka mid ah creation in lagu sameeyo database-ka deletion lagu tirtiro fetching rows la soo xado ama la soo xadiyaan ku dhiin la soo gooyo laga arko rows-ka ama xogtii la arko row waxa la yiraahdaa column aan arki doonaa table kan gaarno modifying wax looga bedelo rows xogta wax looga bedelo etc SQL marka maxaa waaye ANSI macad waajir la yiraahdo ANSI American National Standard Institute lahaa kaasa wuxuu xaqiijiyay ama magac uu siiyay ama sharciyay SQL oo dhahay bes SQL waxay u taagan tahay database kaliya ANSI marka macad ilaa hadda jira waay waxa ka fikirtaa computer waxa lagu sameeyaa China flash waxa lagu sameeyaa Norway si isku qaateen laba shirkadood aska warqabin si isku qaateen waxa jira marka macadkan ANSI yiraahdo oo labadooda kala dhaxdhaxaadiyo dadka teknolojiyada sameeyo oo dhan kana wuxuu dhahay standardkaas mar adigana standardkaas mar saa labadiina ba suuq u heshaan SQL maxaa waaye waxa laga soo gaabiyaa structured query language waxaana ku taagan tahay inay hawshan qabto SQL waa relational database system waa database relational database relational ama RDBMS waxa lagu magacaabaa database leh relationships lahaan karo okay waxa kamid ah MySQL waxa kamid ah MS Access waxa kamid ah Oracle Sybase Informatics Postgre and SQL Server waxa kamid ah intooda waxa lagu magacaabaa RDBMS iyo kuwa kale oo maqan hadda waxa lagu magacaabaa RDBMS MySQL MS Access Oracle Sybase Informatics Postgre SQL Server intaas oo dhan ayaa kamid ah okay why SQL markaan arkayna marka luqado kale waxa jiro adeegsadaan database-yada tusaale TSQL kamid ah waxa adeegsato SQL Server BLSQL waxa adeegsato Oracle luqad kale gooni ah waayo oo dial ah loo isticmaalo in lagu maamulo administration-ka gaar ahaan database administration-ka lagu maamulo loo isticmaalo MS Access oo isticmaalo isagana JetSQL why SQL marka SQL maxaa loo isticmaalaa intaan oo dhan ayaa loo isticmaalaa okay shuruudaheeda
marka waa idin soo dira waad arki doontaan insha allah allow users to create maxay samaysaa SQL marka inay u ogolaato users inay wax sameeyaan iyo database inay abuuraan database ay tuuraan waan arki doonaa koo waxaan samayn doonaa database abuur database tuur waxaan samayn doonaa ayaa sidoo kale brief history goormee soo baxday SQL ama database waxaa la magacaabay Dr. Edgar F. Ted code ayaan shuruudaha database ka dhisay 1974 waxaa soo baxday structured query language ama SQL 78 IBM ayaa waxay horumarisay fikradii Dr. Todd waxayna samaysay software la yiraahdo System R oo isagana database yar ah laakiin database-da kor waxaa la isticmaali jiray buugaag waa lixdameeyadii kor ilaa haddana Soomaaliya waxaa jiro inta Soomaaliya ay ka jirto dukaamo ama shirkado laga isticmaalo buugaag dan annaga IT shaqaan oo taal oo ah inaan system u dhisno maxaa yeelay waa ceeb wadamo hadda systemyadooda buugaag ay tahay ma jirto waad arki kartaa Soomaaliya hadda maqaayadii application leh marka mustaqbal fiican leeyahay yaa wax kale leeyahay ka dhaadhicin hadda IT tahay mustaqbal fiican leedahay badana IT maxaa looga ordaa hal shaqo waad ka lacag badan tahay dadka kale waa la hubaa qof IT qof marketing isku lacag maahan kaliya waxaa la qiimeeyaa badana dadka oo medicine-ka inay ka lacag badan dadka IT-da kaliya laakiin qofka IT-da dadka ugu lacagta badan ayuu ku jiraa application-ada sameeyo okay dadka ugu fursad badan ku jirta okay waxa ku jirta dadka hadii la buriyo aan wax kale u baahnayn tusaale programmer 5 sano ahayd company u shaqeynaysa dan waraxaysa 5 sano kaliya dad programmer noqdo oo hal language laakiin ha ilmaamina arday Soomaali badan waxay isku qasaan inay maadooyin language far badan isku bartaan hada taas samaysid dan suuqa ka baxday waxa noqotay kiyaab Ingiriis meel kasta galaayo waxba aanan meel xaqiijin karin hada laakiin hal meel ku go'do SQL amal hada ku go'do dan hadii company uu ku buriyo adaa ka faa'iido badan company afro kartaa la taliya noqon kartaa inta soo dhan okay marka consider words waa saasa marka loo soo hormariyay consider sayashmid xil loo dhawaan waxa soo baxday Oracle then day 2 waa bari qaadan doona insha Allah software-ka lagu magacaabo SQL server waxa lagu magacaabaa Microsoft SQL server hadaan rabo inaan isticmaalo aan isticmaalayaa kan soo deji then waxaan start menu aan galaa then waxaan leeyahay waxaan ku qoraa SQL server application-ka marka hadaan rabo inaan soo dejiyo waxaan soo dejin kartaa Microsoft SQL server marka hadaan qoro SQL server waa kana halkaan uu saaran yahay marka waxaan leeyahay right click then waxaan leeyahay ama double click then application-kii ayaa ii soo kacaya ii shaqeynaya okay hal daqiiqo wax ka yar haysanaa marka waxaan sameeynaa zoom-ka naga go'i doono then application-ka abuureena and database abuureena database-ka isticmaaleena kadibna table aan abuuranayna marka table yar oo fudud ayaan abuuranayna oo wax yar aan ku xareeyno ardayda SQL-ka qaadanaysa kaliya waa kana waa Microsoft SQL Server 2014 marka management studio okay marka hadii wax su'aal kale jirto intuu application soo kacayo diyaar waayo wax su'aal kale ma jirto ustaadeen xogaa mar aan ku soo laabto application-adan 2014 midka soo kama weyna ma fahmay ilaa 20 gaarsiinaya 16 hadda fiican waliga application-ka company-da soo saaray waxa la isticmaalaa ku 2 sano kadib ay sameeyeen 2 sano ka hor ay sameeyeen laakiin hadda isticmaashid 2021 am 2020 hadda isticmaashid computer-kaaga waxa laga yaabaa 2 sano ka hor inaad gaday darasiga am isku shaqeyn karaan marka ya qalad ma ka baabacay marka qalad leh ku haysanaya ani computer-kaaga hadda waxa gaday 16kii sida darteed waxa ugu habboon inaad isticmaalo 14 qaladku waa iga yaraana marka maxaa yeelay 2 sano oo software-kan shaqeynaya computer-kayga la soo saaray ama suuqa la soo geliyay laakiin computer-kaaga oo soo gaday wax la yiraahdo 5 sano ka hor hada isticmaal application-ka hada waa isticmaal application bill ka hor soo baxay dan qalad ma ka dhamaanayo mana